بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال. meeshaan aad arkaysaan waa beeraha xareedo weeye halkan waxayna beerta ka mid tahay degmada Jallaqsi gobolka Hiiraan. degmada Jallaqsi waxay ka mid tahay gobolka Hiiraan ayay ka mid tahay. halkan daawadayaal aad arkaysaan waa ceelkan daawadayaal idin tusinayo waa kan asigoo lagu qoray qoditaankiisa lagu qoray waxay tahay sagaal maalmood ayaa lagu qoray. fahanteen ninka qoday magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Xasan. waa kana daawadayaal ninka aad arkaysaan weeye. intan halkan uu qodayna waxay tahay inuu matoor halkan uu geliyo. meeshaan aad arkaysaan daawadayaal waa ceelkii oo gacanta ku tilmaamayo oo sagaalka maalmood lagu qoday. halkan uu qodayo Cabdullaahi Geesood waxa weeye daawadayaal inuu matoorka geliyo dabeedna marka daawadayaal xoogo muuqaalka waxay dhig istaagay halkan inuu ka bajiyo meesha gacanteeda ku tilmaamayo inuu matoorka shabuuriis inuu ku bajiyo rabaa. meesha uu qodayo Cabdullaahi Geesood inuu matoorka uu geliyo ayuu rabaa. ma fahanteen ninkan bixinayo cali cilmi xasan ayaa la yiraahdaa. ninkan ciida bixinaya Cabdullaahi Geesoodna waa kana. haya Cabdullaahi daawadayaasha maxaa dhihi lahayd akhbaar ceelka kasi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. marka ugu horeysa daawadayaasha aad iyo aad ayaan u salaamayaa. magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ku magac dheer Geesad Dabran. waxaad booqan kartaa Geesad Dabran official. sidaad u jeedaan daawadayaal nin dhulkiisii jooga asagana baahan waa wax lala yaabo. alxamdulilah rabbil caalamiin. ceelkan aad u jeedaan aniga keligii ayaa qoday. waxaana ku qoday muddo 9 maalmood daawadayaal hadeertu waa maalinkii ugu dambeysay. haddoo ilaahay yiraahdo biritu waxaan rabaa inaan soo saaro matoorkii ayaan rabaa halkan qodayo inaan soo geliyo. marka insha allah biidnillah waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed joogto qurbaha iyo dalkaba. ceelkan aad u jeedaan 9 maalmood haddaan ku qoday wixii lagu caawin karo waxaan rabaa inaan shamiinta saaro oo ka dhigo ceel la yaqaan oo magaalada degmada Jallaqsi aan ka waraabiyo oona qudaartii iyo wixii beertii aan ka saaro. marka waxaan idigu baaqayaa dhammaantiina daawadayaal in aad i caawisaan waxaad igu caawin kartaan karaankiina ah. insha allah biidnillah waan isla arki doonaa marar badan ayaa sheekaysan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. wassalaamu calaykum Cabdullaahi adiga magacaada waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamuud Xasan macnaha sadmeeno. su'aal waxaan ku weydiinaya waxay tahay ceelkaani imisa maalmood ayaad qoday? maasha allah waa mahadsantahay walaalkayga. ceelkan waxaan qoday muddo 9 maalmood ayaan qoday. haddoo laga bixiyo maalmo kooban oo daal iyo waxaas aan micnaha aan taway ayaan jeclahay. insha allah gabagaba ayuu ku dhow yahay. waa gartay hadda halka aad qorayso meeshaan waa ceelkii oo aad qotay 9 maalmood ku qoday. intana maxaad ka rabtaa? halkan waxaan ka rabaa meeshii la dhigi lahaa matoorka waxa weeye matoor yar oo 80 ah. halkan ayaa doonayaa inaan shaboolihii ka bixiyo. waa u jeedaan filayaa ceelkii halkan uu ku dhagan yahay. halkan laga bajinayo waa 2 mitir bar ayaa la qodayaa. kadibna biyihii ku jira ayaa dibadda loo saarayaa. sidaa ayaa beerta la doonayaa in lagu waraabiyo. waa gartay Cabdullaahi su'aasha marka hore saddexaad ku weydiinaya waxay tahay ma jirtaa maalintii aad bilaaweysay wax dhaqaale ah dad ay ku siiyeen ama ilaah kuma darnaadee ama joornaad ku bixisay ma jirtaa? والله الحمد لله رب العالمين. horta waxaa iska jira waxyaabo yar yar oo qofka bini'aadanka u baahan yahay laakiinse aniga waxaan jeclahay inuusan dhaqaalaha oo dhan aniga la isku qaato aniga la isku jamleystay. waayo waxaan ahay nin xoogaa yar jeebkiisa iska eber ah. marka waxaan isku dayay haddii aan ahay nin bini'aadan ah wax waliba la suubin karo in aan ceel keligii aan qodo karo. sidaa ayaa isku dayay. waa gartay maxaa kugu kalifiyay in aad ceelka halkan ka qodid? walaal horta nimaa ciiloonin horta waxba ma helo. waxaa jira kanaal oo noo saaran ceelkan waxaan aniga beerta waxaan ku abuurtay khudaar ayaan ku abuurtay. khudaartii aan ku abuurtay ayaa muddadii aan rabay lagu waraabi waayo 2 saac lagu waraabi maayo ayaa la ii yiri. maalinkaas go'aanka aan qaatay ayaa ah in aan keligay ceel qoto
sidaa ayaana ceelkii ku bilaabay alxamdulilah rabbilcaalamiin haddeertanna waxay maraysaa heer gabagaba ah waa gartay halkaa ceedka oo qodaysid yaa iskale dhulkaani alxamdulilah rabbilcaalamiin dhulkaani waa dhulkii awoowaheena aan ka soo gaarnay insha allah biidnillah waxaan rajaynayaa dhowaan inaan ka dhigo meel loo soo daabasho tago gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi qudaar ayi nooc ah ayaan rajaynayaa kalibkan kalibka xiga hadduu ilaah yidhaahdo dhulkan waa dhul awoowaheena ka soo gaarnay waa gartay daawadayaal ninka aad adarkiisaan waa cabdulaahi geesood waaye halkan uu qoday waa xookana waa qaybtii motoorka inuu saaro ceelkii waa kana daawadayaal uu qodaysa halkan baa lagu qoday intana marka wuxuu laba mitir inuu qodo motoorkana u saaro cabdulaahi su-aasha kale marka lagu weydiinaya waxay tahay motoorka ma ku yaala mise mid hadda soo gadaysa waayo oo waayo dadku uu bala qaaday miyaa jiro wallahi alxamdulilah rabbilcaalamiin motoorka waa motoor shirka ah laakiinse waxaan jeclahay motoorka in aan yani waxaan u isticmaalaa qaab aniga aan leeyahay camal laakiinse hooyaday ayaa iskale maadaama uu motoorka aabbahe uu gaday haddeerto ayada ayaan ku wareejinay alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaa aan ku joognaa dhammaanna waxaan rajaynayaa bulshada soomaaliyeed in wax waliba ay iga caawin doonaan waa gartay okay ceelka oo u sheegtay daawadayaasha wax ma jiraan oo sharka aad ku tihiin oo dad ganacsado ah ama ilaahay kuma darnaaday aad ku bixisay ama ay daawadayaal maxaa u sheegi lahayd والله waxaan dhihi lahaa horta cid aan ku oo ganacsada oo amba i gacan qabatay amba ceelkan garab iga siisa haba yaraatee ma jirto laakiinse dad yar ayaa jira oo mar hal saac laba saac la yimaado oo i caawiyaan carrada iga bibixiyaan sida ayaa heerkan kusoo gaaray marka daawadayaal nin walba uu dadaalo dhulkiisa wuxuu ku soo saaran karaa intaad dibadda iyo meelahaas aad wareegi lahayd waxaa ka wanaagsan inaad dalkaaga aad wax ka soo saarato waa gartay markaan daawadayaasha halkan kameraan aanu كاميرا وفتينيو أما مقالكيس عن كخاضو بدر كان كيال محاوية بدر كان هارون نسيته صح مركان لسوق قابيو الحمد لله نور كان أرفض والرافعة وبلاي نومة تستي هدي عنو نهاي ضد كبيرالي قبل كهيران قال دقمنا جالقسي مركان داوديشا نسيت له واحد دون أي مرة إن عن قوي وعن صوصار هدو إلى هيران واقف